Hello, وقميو حر حيل جديد أمات كفي عندهين. So short little video هي إذن هيا sheekadan waxay ku saabsan tahay caydiid loo naxariiste. Anyways, sheekadan maxaan ku keenay Soomaalimahan imika siyaasadda adduunka hadaad u fiirsatid waxaad arkaysaa imika dee maxaa la yidhaha reer galbeedkii inay leeyihiin waa inaan peacekeeper wadanka Ukraine geynaa soo maaha oo dee nacam Ukraine waa in askar maaragtay peacekeeperka in la geeyo sida ruushka loogu dagaalamo. Ruushkuna muxuu yidhi carar marka imika sheekadaas baa socota oo wuxuu yidhi there's no way aad keenaysiin next doorka ciidamo idinka socda. Then su-aasha waxa weeye muxuu u diidan yahay because obviously waa nin siyaasi ah, waa nin sirdoon haan jiray oo sheekadan meesha in dee loo soo dhawaado wuxuu ku og yahay waxay rabaan dantay rabaan oo eventually de in loo soo maxaa la yidhaahaa loo soo dhawaanayo in la rabo so ma aha. So waxaan soo xasuustaa da siday dhoontaba ha u dhacday dowladdii ama xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre markay dhacday militarigii meesha laga saaray ilaa raggu way tartamaane obviously but there's a better way to do it. But the Soomaali haddii la yahayna xoog baa la isticmaalayaa that's just siday nimanku yihiin qaarkood xoog bay isku dayaan. So waa tii la riday dowladdii militariga. Okay, so dowladdii militarigii khadka marka laga saaray obviously ilaa nimankan waxay kasoo wada shirayeen in maxaa la yidhaha dowladda sidii loo sii wado laakiin dad kale la keeno meesha oo caydiid ka mid yahay oo dee waxaa jirta meel ay iskaga eg yihiin caydiid iyo Maxamed Siyaad Barre loo naxariista meeshaasina waa maxay waa wadanimada so meeshaasi waa wadaninimada labadoodiba waxay haayeen iyo dad kaleba Cabdiraxmaan Tuure dad xitaa ku dirtid niman wadani bay haayeen basaasiin may haayeen waxay even though ay arrogant haayeen oo dowladdii rideen haddana waxay rabeen wadanka inay meel gaarsiiyaan oo sii wadaan maadaamay dee niman wadaniyiin haayeen way ogaayeen waxa soo socda especially caydiid marka caydiid markuu meesha soo galo qabsaday maxay isku laayeen nimankii reer galbeedka waxay yidhaaheen waxaanu keenaynaa peacekeepers dee waxaan imika wadankii kasoo buuxsamay meel kasta jooga een baxaynba plankooda iyagu taasu haa isna wuu ku fahmay waxaas maogtahay marka isagu wuxuu yidhi no waryaadahan peacekeeper iyo balaayo ma keenaysiin anagaa wadankayga maamulanayna marka taasaa la isku haystay ila iyagu waxay rabeen inay soo siqdaan oy meesha keenaan waxaan peacekeeper mamarsiyadaas ay dantooda uga shaqaystaan. Maxay sameeyeen waxaa jirta imika niman iyo naago maaragtay xitaa imika Somaliland baan ku arkayaa Soomaaliya xitaa way imanayaan dad Pakistaniyiina oo leda travelers baanu nahay travelers maahe waa basaasiin weeye markaasaan isweydiiyey waqtigan maxaa Pakistaniyiinta wadanka dhex keenay ama Soomaaliya ama Somaliland ha haato waxbaa isweydiiyey ilayn anigu waxbaan u fiirsaday idinku waxba uma u fiirsatiin details are important reer galbeedku waxay dhahaan the devil is in the detail detailada waa inaad u fiirsatid marka waxaan isiri dadkan Pakistaniyiinta imika wadanka imanaysaa tourists ka dhigaysaa maxay rabaan maxay wadaan marka waxay rabaan in dadkan la dilo ma aragtay wallaahi oo bilaahi waa tabtii caydiid ku dhacday so markuu nimankan diidanaa uu yidhi ma keenaysiin peacekeeper iyo group iyo maxaa la yidhaha military peacekeeper ma keenaysiin wadanka waxay dhaheen okay in yar baynu soo diraynaa. So 6 nin baan u malaynayaa ama hadday 16 mise 6 nin bay haayeen oo Pakistaniya wadanka joogta Muqdisho joogta xamar joogta ma ogtiin 6 nin Pakistaniintii waa tii la laayay markii nimankii la laayay ayaa wax la yidhi oo meeshani waa khatar amnigeedu marka qasab weeye in peacekeeper la keeno saasay ku soo galeen iminka waxaan the peacekeeper iska dhigaya wadanka ka baxay marka caydiid marka wuxuu ogaaday dantay leeyihiin ilayn oo haddaad u fiirsatid iyagaa waxaan setupkan sameeyey iyagaa UN-ta peacekeeperkooda iyagaa iska laayay oo hadhow toola yidhi meeshani amnigeedu wuxuu yahay waa inaan dadkeenna ma fahanteen
saasay ciidamadii dee waxaan peacekeeperka iyo UN ku soo galeen ya oo imika dee waad hada arkayso oo nimankanba meesha laga saari karin oo lasoo qulqulayo uun lasoo socdo uun ya so berigaa sheekadaa markaa maqlay maaragta ayaan idhi oh my god this is the reason wuxuu u diidayay wuu ogaa inay sheekadan iyo plankan ay soo dhigteen inay dee rabaan inay waddanka ku qabsadaan waxaasuu uga dagaalamayay waxaasa isaga dee looga dhigay enemy number 1 yeah because wuu fahmay filinkooda yeah laakiin dadkan Soomaalida ee qabyaaladu maskaxda ka gashay walaa filimada iyada ee filinka weyn ku hoos jira ma fahmayaan makes you wonder you know dadka aqligoodu dabadu kaga jira yeah indhahoodu shana wixii ma arkayaan haddana it's very obvious so anyways so ninkaasi hawiyeen habar gidur hawiyu haya oo filinkooda wuu fahmay imikana waad arkaysaa ninkan kale hawiyeys afgaalka ayaa sheekadan afgaaliya hawiyeys haysta yaa meeshay sal ku leedahay baa wax idinka tusaya yaa imikana bal u fiirso ninkan hawiye afgaalka isaguna habeenii maalin wuxuu bariyayaa ciidamo noo keena askar noo keena peacekeeper noo keena yaa marka labada nin maxay kala duwan yihiin midi wadani buu haa yaa midina waa tuug waa khaayin wey waa trader yaa laakiin de haddaad abgaaliya habargidru kala eexatiin ama de wixii qabayaalaysiisiin yaa de sheekadu wallahi bilaaydeeran badan ka baxayn yaa waa Soomaalida reer xamarka ama de reer koonfur yaa wuxuu fiirsada anyways taasi waa taas iyo sheekadii caydiid yaa adduunkoo dhan waxa weeye observation yaa waa wax u fiirsi yaa maxaa la yidhaha puzzleka isku dhaji yaa marka sometimes I wonder wallahi waxay Soomaali maaragtay Soomaalinimadu dhibayso yaa anu ma fahmayo waa dad Soomaaliyaanu nahay bay ku leeyihiin Soomaalinimada iyo Soomaaliya iyo waddankayga dhulkayga waan jecelnahay haddana Soomaalinimadii baaba dhibaysaba inay burburiyaan bay rabaan yaa